أروريسو بنداوضيال haddii Soomaaliya ku sugan tahay waxay ku tahay xilli aroor ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waa aroornimo jimca tirada taariikhduna waxay ku beegan tahay 27ka bisha February 2026 waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan aroornimadkan waxa qayb ka noqonaya dagaalkii gobolka Sanaag oo waji kala yeeshay General Mahad Cambaashe oo ku biiray dagaalka haddaba maxaa ka soconaya deegaankii lagu dagaalamay ee shidan dhaqdhaqaaqyada culus ee ka jira ciidanka militariga Soomaaliland ee halkaasi buux dhaafiyay iyo dhaqdhaqaaqyada culus oo ay wadaan ciidanka maamulka waqooyi bari ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxa qayb ka noqonaya ciidanka Soomaaliland oo heegan saaka ka galay xerada la yiraahdo og ee dhaqdhaqaaqyo culus oo ka soconaya jiidaha dagaalka ee gobolada Sool iyo Sanaag waxaan ku soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee arintan la xiriira qodobada kale wararkan aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxa qayb ka noqonaya lafta garen oo qarka u saaran in laga ceyriyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo ciidanka ka goosanaya maamulkiisa oo tirabeel noqday waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada culus oo mucaaradku ay ka bilaabeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo dagaalka laga cabsi qabo in mar kale uu ka qarxo magaaladaasi qodobada kale wararkeena aan idinku soo gudbin doono waxa qayb ka noqonaya duqeymo culus oo xalay ka dhacay magaalada Jilib iyo ciidanka xoogga dalka oo saaka howlgal culus ka wada gobolka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaan ku soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad arintaasi ku aadan qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir qayb ka noqo saaxiibada halkan ku xiran like saar muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan si toos ah u guda galaynaa wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda dagaalkii gobolka Sanaag shalay ka qarxay ayaa waji kala yeeshay iyadoo ciidamo uu hogaaminayo General Mahad Cambaashana ay ku biireen dagaalkii cusla ee ka dhacay deegaanka lagu magacaabo shidan oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaasi oo isku farasaareen ciidanka maamulka waqooyi bari iyo kuwa maamulka ee Somaliland ee militariga ah ee halkaasi gurmad ahaanta u gaaray kadib markii dagaal beeleedyo ay ka qarxeen deegaankaasi dadkii ugu badnaa ayaa ka barakacay deegaanka shidan waxaana la dareemayaa saaka dhaqdhaqaaqyo culus oo deegaanka ka soconaya iyo cabsi xoogan oo laga qabo in mar kale ay markaasi gorada isgaliyaan ciidanka maamulka ee Somaliland iyo sidoo kale ciidanka maamulka waqooyi bari oo saacadii la soo dhaafay gurmadyo kala duwan dhinacyadu ay kala heleen macluumaadkii ugu dambeeyay la helayo ayaa tilmaamaya in deegaanka shidan saaka ay gaareen ciidamo uu hogaaminayo General Mahad Cambaashe oo saqdii dhexe xalay ka soo baxay magaalada Ceergaabo iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus mudooyinkii la soo dhaafayba ay ka wadeen General Mahad Cambaashe iyo ciidankiisa ayaa la tilmaamay in ay waji kale u yeeleen dagaalka ka qarxay deegaanka lagu magacaabo shidan oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaasi oo isku farasaareen ciidanka maamulka waqooyi bari iyo kuwa militariga Somaliland dagaal geysta khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawacna halkaasi uu ka qarxay mar kale dagaal ayaa laga cabsi qabaa in uu saaka ka qarxo deegaanadii lagu dagaalamay shalay oo ciidanka militariga Somaliland iyo kuwa maamulka waqooyi bari wali ay isku horfadhiyaan dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in deegaanka ay ka soconayaan xilligan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda saacad walbana waxa la filan karaa sida la tilmaamay in dagaal uu ka qarxo deegaanka
arintaasi oo la tilmaamay in ay tahay mid hooga tusaaleynaysa in deegaanada gobolka Sanaag xilligan ay ka dhici karaan dagaalo aad u culus oo u dhaxeeya ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidanka maamulka waqooyi bari ee xilligan halkaasi dhaqdhaqaaqyada xoogan ka bilaabay macluumaadkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in General Mahad Cambaashe amar culus lagu siiyay in uu qayb ka noqdo howlgalka ka dhanka ah dagaalka xilligan ka soconaya deegaanka Shidan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka militariga Somaliland ee isagu uu hogaaminayo kuwaasi oo la sheegay in ay si toos ah uga amar qaadanayaan General Mahad Cambaashe sidoo kale isaguna uu ka amar qaadanayo taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nimcaan Gaaxnuug oo isagana amar ka helaya madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro dagaalka oo shalay ka bilowday dad xoolo dhaqato ah ayaa la tilmaamay in uu yeeshay waji kale maadaama xilligan uu ku biiray General Mahad Cambaashe sidoo kalena walwal xoogan xilligan laga muujinayo in dagaalku mar kale uu qarxo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga maamulka waqooyi bari waxay noo xaqiijiyeen in gurmadyo kala duwan ay heleen deegaankana iyagu ay ku xoogan yihiin xilligan sidoo kalena aysan walwal ka qabin in ay markaasi dagaal culus kala kulmaan dhinaca maamulka Somaliland arintan waxaa la tilmaamay in ay tahay mid markaasi ka sii daraysa marba marka ka dambaysa iyadoo xaaladda la xaqiijinayo waa xaaladaha taagan xilligan iyo xogaha la xaqiijinayana ay tilmaamayaan in saacad walba la filan karo in uu dagaal halkaasi ka qarxo sida macluumaadka ay tabinayaan wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa sidoo kale waxa intaasi ku darayaan in deegaankii shalay lagu dagaalamay hadda xaaladiisu ay tahay mid degan laakiin ay sii kordhayaan dhaqdhaqaaqyada marba marka ka dambaysa ciidanku ay sameynayaan ciidamo aad u fara badan oo hubeysan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay markaasi dul tageen deegaanka lagu magacaabo Shidan oo ka tirsan gobolka Sanaag iyadoo ciidamo aad u fara badan oo ka yimid dhinaca deegaanka lagu magacaabo Ceel Afweyn iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaagna ay soo gaareen deegaanka lagu magacaabo Shidan halkaasi oo wali ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca ciidanka ah sidoo kalena markaasi sababi kara in ay markaa dagaal la qarxaan wararkii macluumaadka la helayo ayaa tilmaamaya in sidoo kale meelo badan oo kamid ah maamulka Somaliland xilligan lagu arkayo diyaarado dagaal kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin kuwa markaasi dul heehaabaya deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen markaasi xaaladda aan xasiloonayn xilligan ay ka taagan tahay sida ay soo warinayaan dadka deegaanka oo inoo xaqiijiyay in ay xilligan cabsi xoogan ka muujinayaan in mar kale dagaalku uu sii fogaado sidoo kalena waji kala yeesho arintaasi oo sababi karta in ay dhacdooyin markaasi aan dan u ahayn dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan oo markaa dhibaatooyin xoogan ku qaba dagaalada dhaxmaraya ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidanka maamulka waqooyi bari oo xilligan markaa iyagu wada dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca militariga ah isla markaana cabsi xoogan laga muujinayo in ay isfarasaaraan ciidamada ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay kala heleen gurmadyo kala duwan oo markaasi dhinacyada lagu taageerayay walow aan la xaqiijin gurmadkan rasmiga ah iyo sidoo kale halka markaasi ay ka helayaan ciidanka maamulka waqooyi bari laakiin waxa la tilmaamay ciidamada militariga Somaliland in xilligan iyagu qudhooda ay helayaan gurmadyo kala duwan maadaama diyaaradaha dagaalka mararka qaar la arkayo inay dul heehaabayaan deegaankii shalay lagu dagaalamay sidoo kalena ciidanka militariga Somaliland waa ciidanka militariga maamulka waqooyi bari ay heleen hub aan horay loo arag kuwaasi oo dhawaqiisa dadka qaar ay tilmaameen in uu ahaa mid ku cusub maadaama dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Turkiga saacadii la soo dhaafay ama maalmihii aanu ka soo gudubnay ay markaa hub culus geeyeen deegaano ka tirsan maamulka waqooyi bari oo la doonayo in gobolka Sanaag markaasi gacanta lagu dhigo ama lagu xoreeyo hubkaasi wixii ku soo kordho wararkeena warbixinadeena soo socda ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii Allah ugu dalo u raali ka noqdo markana ciidanka militariga Somaliland ayaa la sheegay in ay saaka heegankii ugu cuslaa ka galeen xirada og halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo dhinaca militariga ah oo aad u culus ay ka bilowdeen jiidaha dagaalkana waxa lagu soo waramayaa in Somaliland iyo sidoo kale ciidanka maamulka waqooyi bari xilligan cabsi xoogan laga muujinayo in ay isku farasaaraan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo deegaanka lagu magacaabo og ayaa ku waramaya in taliyaha ciidanka militariga Somaliland ninka lagu magacaabo General Nimcaan Gaaxnuug in uu ku soo wajahan yahay deegaanka la yiraahdo og halkaasi
oo heegankii ugu cuslaa ciidanku ay galeen dhinaca kale ciidamada maamulka waqooyi bari ayaa ku hanjabay in ay qaadi doonaan tallaabo culus haddii ciidanka militariga Somaliland ay ku soo xadgudbaan deegaanada iyo degmooyinka xuduudda u ah maamulka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka waqooyi bari ee dhaqdhaqaaqyada culus hadda ay ka wadaan taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu ku celceliyay in ay qaadi doonaan tallaabooyin militari oo ka dhan ah maamulka waqooyi bari isla markaana aan loo abayeeli doonin ciidanka militariga ee maamulkaasi isla markaana la qaadi doono gulfiyo dagaal oo ka dhan ah xirada la yiraahdo ee Guumeys oo ay ku sugan yihiin ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan militariga maamulka waqooyi bari xalay waxa la tilmaamay in ciidankii ugu badnaa ay ka soo ambabaxeen magaalada Laascaanood iyaga oo soo gaaray deegaanka lagu magacaabo Guumeys halkaasi oo asal military oo quwad aad u xoogan oo ciidanka militariga maamulka waqooyi bari ah ay ku sugan yihiin waxaana saacadii la soo dhaafay halkaasi la gaarsiinayo gurmad xoog leh iyo gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan iyo hub culus oo dhawaan ee Cabdulqaadir Firdhiye iyo maamulkiisa ay ka heleen dawladda Turkiga ayaa ballan qaaday in ay taageero dhinaca militariga ah siin doonto maamulka waqooyi bari arintaasi ayaana la tilmaamay in ay keentay in ay ciidanka militariga ee maamulka ee Somaliland xilligan ay sameeyaan waa militariga maamulka waqooyi bari xilligan in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus maadaama xaaladdu ay tahay mid markaasi hoga tusaaleynaysa in uu qarxi karo dagaal aad u culus xogta la helayo ayaa sidoo kale waxa ay xaqiijinaysaa in magaalada Laascaanood xalay ay ka dhaceen kulamo looga arinsanayay dhinaca ammaanka kuwaasi oo markaa lala xiriirinayay jiidaha dagaalka iyo sidoo kale xaaladaha xilligan ka soo cusboonaaday maadaama ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo culus oo la doonayo in lagu barataaro sidoo kalena gacanta loogu soo dhigo magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Sool oo ay gacanta ku hayaan ciidanka militariga maamulka Somaliland xogta la helay waxa ay tilmaamaysaa in la doonayo in toos loo weeraro deegaanka lagu magacaabo Guumeys oo xilligan u muuqanaysa in ay tahay meel ay si weyn u deegaansadeen ciidanka militariga Somaliland halkaasi hadii dagaal uu ka dhacana aysan sahlanayn xilligan sida markaasi looga farmaroojiyo ciidanka militariga maamulka Somaliland sida ay ku waramayaan dadka markaasi oo darasa arrimaha amniga ee halkaasi ku sugan macluumaadkii ugu dambeeyay ee la xaqiijinayo ayaa sidoo kale waxa ay tibaaxayaan in ciidanka maamulka waqooyi bari xilligan ay markaasi heleen ciidamo aad u fara badan oo gurmad ah sidoo kale waxa la tilmaamay in ciidanka militariga ee maamulka waqooyi bari ay kaabayaan ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya halkan ay ka dirtay kuwaasi oo si qarsoodi ah lagu geeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamulka waqooyi bari waxa la tilmaamay in xilligan tala ay ku cirsan tahay dagaal ay uga furan yihiin dhinaca og sidoo kale dhinaca deegaanka shidan dagaal ay ka soconayaan halka maamulka Puntland xilligan laga cabsi qabo in ciidamada maamulka waqooyi bari iyo kuwa maamulka Puntland in ay isfarsaaraan arintaasi oo muujinaysa in ay tahay mid markaasi xilligan walaaci ugu xoogana ku keeni karta maamulka waqooyi bari ee curdunka ah ee uu hogaaminayo Cabdulqaadir Firdhiye ee fadhigiisu uu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood waa magaalo ka soo kabanaysay muddooyinkii la soo dhaafay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay xirada Gooja Cadde ee burburka xoogan gaarsiiyay magaalada dad badan ay u godgaleen madaafiicdii lagu garaacayay magaalada arintaasi oo ilaa iminka dad badan ay tilmaameen in xilligan kabashadii ugu xooganaa magaaladu ay ka wado laakiin haddii mar kale dagaalo dib loogu laabto waxay noqon kartaa magaalada Laascaanood in ay furun isku bedesho sida ay qabaan dadka oo darasa arrimaha amniga kuwaasi oo khatar badan uga digay maamulka uu hogaaminayo Cabdulqaadir Firdhiye ee ka dhisan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo xilligan la xaqiijinayo in maamulka Cabdulqaadir Firdhiye ay isbidayaan awood dhinaca ciidanka sidoo kalena ay doonayaan in ay weeraraan fariisimaha ciidanka militariga Somaliland ay ku leeyihiin qaybo badan oo kamid ah maamulka waqooyi bari waxana maamulka waqooyi bari gobollo badan ama deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool ee markaasi ka haysta ciidanka militariga Somaliland halka gobolka Sanaag oo dhanna uu ka maqan yahay gacanta maamulka waqooyi bari ee Cabdulqaadir Firdhiye uu hogaaminayo taasi oo xilligan abuuraysa shaki xoogan oo ku aadan jiritaanka maamulkaasi sida ay qabaan dad badan oo markaasi siyaasadda oo darasa kana soo jeeda dhinaca maamulka Puntland oo xilligan u arka maamulka waqooyi bari in uu yahay maamul kamid ah maamulka markaasi Puntland uu hogaaminayo Saciid Cabdilaahi Dani haddaba macluumaadkan iyo wixii ku soo kordha ee ku aadan xiisadaha dagaal ee laga cabsi qabi karo in ay ka qarxaan deegaanka lagu magacaabo og iyo dhaqdhaqaaqyada military ee saaka ka soconaya wixii ku soo kordha oo wararkeena iyo warbixinadana soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah ugu dilo uraale ka noqdo markana
lafta gareen ayaa qarka u saaran in laga ceyriyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo ciidanka ka goosanaya ee dhinaca mucaaradka aadayana ay tirabeel xilligan noqdeen hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu waday dhaqdhaqaaqyo uu doonayo in uu uga talroonaado xubnaha mucaaradka ah ee ku sugan deegaanada iyo degmooyinka ee maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo wasiir Xasan Elay oo kamid ah ragga ugu tunka weyn xubnaha mucaaradka ee xilligan magaalada Baydhabo kula dagaalamayo ama ciidankiisa ay kula dagaalamayaan maamulka uu hogaamiyo Cabdicasiis lafta gareen ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo arintan mar ay su'aalo ka weydiiyeen bahda warbaahinta sida laga yeelay xiisada ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee sababi karta dagaalada culus wasiir Xasan Elay ayaa wax jawaab ah arintan ka bixin waxaana la tilmaamay in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka goostay maamulka Cabdicasiis lafta gareen uu hogaaminayo in ay markaasi ku biireen dhinaca mucaaradka ee uu hogaaminayo ninka markaasi lagu magacaabo wasiir Xasan Elay oo awood badan la tilmaamay in uu ku leeyahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay mucaaradka oo isbiirsaday ayaa la tilmaamay in cabsi xoogan Cabdicasiis lafta gareen uu ka muujinayo in ay markaa weerar ku qaadaan xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaasi oo la sheegay in ciidamo awood badan uu dhigay Cabdicasiis lafta gareen oo walaac xoogan ka muujinaya in afgambi siyaasadeed uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka xilligan dhaqdhaqaaqyada culus ay ka soconayaan isla markaasina aan la ogeyn waxa ka dhalan kara xaaladda xilligan taagan laakiin magaalada Baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka markaasi dagaaladu ay ka dhaceen xilliyadii maamulka markaasi koonfur galbeed la yegleelayay ee uu hogaaminayo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xogta iyo macluumaadka ee hadda la xaqiijinayo ayaa tilmaamaya in Cabdicasiis lafta gareen qorshooyin halis ah uu u degayo xubnaha mucaaradka iyadoo sidoo kale ay soconayaan qorshooyin ka dhan ah Cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkiisa oo magaalada Baydhabo xilligan la tilmaamay in ay aad ugu xoogeysanayaan xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo Cabdicasiis lafta gareen ee ka dhisan magaalada Baydhabo cabsi xoogan ayaa laga qabaa in ay martigeliso duulaan culus oo ka dhan ah Cabdicasiis lafta gareen waxaana xaaladdu ay u muuqanaysaa in marba marka ka dambaysa maleeshiyaadka ay ku soo badanayaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay si toos ahna uga amar qaadanaya xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen 2018 ayaa dagaal dhiig uu ku daatay magaalada Baydhabo waxa lagu geeyay iyadoo ay galbinayaan khayra iyo farmaajo Cabdicasiis lafta gareenka iminka ka ariminaya magaalada Baydhabo oo muddo 8 sano ah xilligan ay u go'day joogitaankiisa deegaanada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed arintaasi oo ay ka caroodeen dad badan oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee ku dhaqan meelo badan oo kamid ah magaalooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen waxa lagu eedeeyay in maamulka koonfur galbeed uusan waxba ka qaban muddadii uu markaasi majaraha u hayay iyadoo maamulkiisana uu dhaafila yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gobolkii Xudur waa gobolkii Bakool ee magaalada madaxdiisa ay ahayd Xudurna ay wali ka ariminayaan maleeshiyaadka kooxda shabaab magaalada Xudurna wali ay go'doonsan tahay arintaasi oo la tilmaamay in ay qayb ka tahay fadeexadaha waaweyn ee hareeyay maamulka Cabdicasiis lafta gareen ee ka dhisan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay magaalada Baydhabo xaalad hubanti la'aan ah ayaa la tilmaamay in xilligan ay wajahayso dagaalana ay ka cabsi qabi karaan dadkeedu in magaaladaasi ay ka qarxaan ayna waxyeelo ka soo gaari karto dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan dhowr jeer oo hore magaalada Baydhabo waa lagu wada dagaalamay waxaana waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaasi oo dhimasho iyo dhaawac markaa kala kulmay dagaaladii ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay ugu horeysay dagaalkii 2018 ka dhacay magaalada Baydhabo kaasi oo xukunka looga riday madaxweynihii halkaasi ka ariminayay ee la oran jiray Shariif Sakiin oo ilaa iminka markaasi noqday mid dabcan banaan joog ah sidoo kalena maamulkii xilligaasi dawladii farmaajo ay geysay magaalada Baydhabana wali ay ku naaloonayaan magaaladaasi oo dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana ay ka wadaan haddaba wixii macluumaad ah oo ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan laakiin magaalada Baydhabo iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed maxaa xal u noqon kara maadaama xilligan xiisadaha u dhaxeeya dhinaca koonfur galbeed iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ah ay sii kordhayaan marba marka ka dambaysa aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag ugu dambeyntiina duqeymo culus ayaa xalay waxa ay ka dhaceen magaalada Jilib iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe halkaasi oo saacadii la soo dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay tiri
ama ay sheegtay in ay markaasi ka fulinayso duqeymo aad u culus isla markaana lagu laba jibaarayo sida ay sheegeen wasaaradaha markaa ku shaqada leh arintan duqeymaha la doonayo in laga fuliyo qaybo badan oo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe saacadii la soo dhaafay waxa ka dhacay duqeymo aad u culus diyaaradaha dagaalkan waxa la tilmaamay in ay la bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda shabaab oo ku sugnaa qaybo kamid ah gobolka markaasi Jubbada Dhexe magaalada Jilib iyo magaalada Bu'aale labaduba waxa ay marti u noqdeen maalmihii la soo dhaafay duqeymo aad u culus oo diyaaradaha dagaalka si markaasi xad dhaaf ah ay ula beegsanayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda shabaab oo la rumaysan yahay in xubnihii ugu sareeyay kooxda ay markaasi ku sugan yihiin magaalada la yiraahdo Jilib iyo sidoo kale banaanka magaaladaasi oo duqeymaha xoogooda ay ka dhacayaan dhinaca kale saaka waxa la tilmaamay in howlgallo culus ciidanka militariga dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka maamulka Jubbaland in ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka markaasi la yiraahdo Jubbada Hoose gaar ahaan Jamaame iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi oo xilligan ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo dhinaca ciidanka ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay ay fuliyeen howlgallo culus oo lagu barataarayay xaalka guud ee markaasi deegaanada gobolka Jubbada Hoose isla markaana la doonayay in looga saaro maleeshiyaadka kooxda shabaab waxaana howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo qorsheysan waxaana la tilmaamay in ay dhaceen dagaallo kooban oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka markaasi Jubbada Dhexe halkaasi oo maleeshiyaadka kooxda shabaab la aaminsan yahay in ay markaasi ku leeyihiin saldhigyo waaweyn ciidanka saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda shabaab isla markaasina lagu beegsan doono goobaha iyo deegaanada ay markaa kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka maamulka Jubbaland haddaba Jilib waxa ay ka mid tahay magaalooyinka muddada dheer maleeshiyaadka kooxda shabaab ay ku sugnaayeen isla markaana ay ka dhaceen duqeymihii ugu cuslaa horjoogayaal badanna markaasi lagu dilay waxaana la tilmaamay in Jilib xilligan ay qarka u saaran tahay in maleeshiyaadka kooxda shabaab gabi ahaantoodaba ay iskaga baxaan arintaasi oo muujinaysa in markaasi kooxda shabaab waayahooda xilligan uu soo afjarmayo sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha amniga wuxuu ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusubtaa waxaan ku leenahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe de buggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno aruuriyo soo banjimca wanaagsan